Munaasibadan oo ahayd mid ay ku qalin jabinayeen ardo dhamaystay Quraanka Kariimka ayaa lagu qabtay madarasada Nuurul Huda ee degmada Garbaharey. Xafladan sida weyn loo soo agaasimay ayaa ahayd mid lagu weyneynayo laguna dhiirigelinayo ardadii muddada badan soo waday barashada Quraanka Kariimka. Munaasibadan oo ay ka soo qayb galeen culamaa u diinka degmada Garbaharey iyo waalidiinta ay carruurtu u qalin jabinaysay ayaa hadalla baraarujin ka soo jeediyay iyagoona sheegay inay soo dhaweynayaan hadda wixii ka dambeeyana loo baahan yahay inaanan la kala joojin munaasibadaha loo qabanayo ardada dhamaystay Quraanka Kariimka halka ay dadku aad u weyneeyaan xafladaha kale. hadda adduunka waxaa badan carruurta waxbarashadooda waa lagu dadaalaa laakiin Quraanka iyo iskuulka waxa la jecel yahay iskuulka lacag baa loo huraa waqti baa loo huraa asaga kan lacagtiisa waxa laga yaabaa in la qataateeyo waqtigiisana yani la yaraysto laakiin ogow oo waxa aakhiro iyo adduunba ajir laga siinayo waxa weeye waa Quraanka waxaad ku bixiso adduunkana ilmihi baa ku hagaagaya xoolahaad bixisana sadaqay noqonayaan ixtiraamkaasna waa loo baahan yahay waa arrin aan ku faraxsanahay weeye ani ahaantaydana aasaaskii hada dugsiga sida loo sheegayna waan ahaa laakiin waqtigan dambe waalidiinta dugsiga yaan ku biiroon ka mid ahay alxamdulillaah rabbil caalamiin baan leenahay arrinta hadda muuqato waa arrin dadaal saldhig u ah waa arrin juhdi iyo qowl iyo qalbi iyo ficil israacsan. ugu dambeyntii ayaa waxaa goobta ka hadlay madaxa dalladda macallimiinta degmada Garbaharey Cabdiqaadir Maxamed Caafi isagoona sheegay fadliga iyo karaamada lagu gaaro Quraanka barashadiisa iyo baristiisa. waliba xafid oo Quraanka inta la akhriyo alfaadiisa bas ma ahaanay bal macaanihi bay xataa la xafidaya oo la xifdinaya culumti ku tacalluqday baa la xifdinaya هذا عيال كيرجع قرآن كي بس ما أركب سنة حفظ سنة حتى علومتي علم تجويد كي بحفظ سنين أنا قارقة ده وما ده وحي نصر هذا الكتاب كان صور دم بين حرف هذا لا حفظي حفظ كيسة أي جارتي سيد الله حفظي وكوبان يا صور دم بقول 8 أفر صورات ويا قرآن كان يوكا كوبان هاي صدق جزء ويا السادسة سمع عيسى أنا حوالي إلى تدوس معوي قرآنك وحلا شجع حتى حروف تيس أنت تاعي وأنت أصلا حرف ويا اللي هذا صدق بقلباتن يكو كن بقل يسديتن حرف ويا اللي هذا كلمات كيس على شجع تدواتن تدوكن سيدات بقل استدعاتني تدوكن أفر بقل صدر يا سجال كلمة ويا اللي هذا كلمات كقرآنك warsame xaaji faarax raadiyaha iyo TV-ga koonfur galbeed degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo.